ciidankii ugu badnaa ayaa magaalada Kismaayo ka ambabaxay oo ku sii jeeda deegaanka Raskamboni. deegaanka Raskamboni dagaal inuu ka dhaco oo bari aroorti lagu kala baxo ayay qarka u saarantahay oo ciidamadu way soo fadhiyaan. ciidamo gaadiid dagaal wata ayaaba isku dhiibayba kuwii dawladda federaalka oo isku soo dhiibayba. saraakiishan maanta hadlay waa lagu khasbay inay hadlaan oo mowqifkooda ay cadeeyaan ee iyaga uurkooda waxa ku jira iyo rabitaankooda waa wax la garanayo inay ciidanka dawladda ku biiraan ayayna doonayaan. Axmed Madoobe nimanka ku difaacaya qabiil ragga qabiil ku difaacayo aakhiro su'aal baa idin taala. Axmed Madoobe wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo qarax kulaayo dad shacab oo masaakiina oo meel ku shiraya oo aragtida isaga ka duwan wata qarax intuu dhaxdhigay kibka siiyay buu ahaa. aniga Axmed Madoobe waa in adeerkay laakiin arrin baan isku haysanaa oo ah war reer Jubbaland isbedel ha ka dhaco oo reer Jubbaland isbedel ha helaan intaas ayaan isku haynaa. haddii maanta uu bari halka ka baxo oo kursigan intuu wareejiyo dad baa u dhintay oo ku wareejiyo ama oo tartan loo galo aniga Axmed Madoobe isma hayno waxna iskuma hayno. maanta waxaan rabaa inaan idin cadeeyo inaana anigu taageersanayn Xasan Sheekh Maxamuud isoo dirsanin balse aan ka hadlayo arrin ay reer Jubbaland u baahan yihiin oo xaqiiqada in la iska dhinatiro aysan ahayn. cidna uma shaqeeyo anigu xaqiiqada ayaan iftiimiyaa. dad xaqiiqada diidantaada ku tal war soo dhawaada wadayaal waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku dul istaago ciidamo tiro badan oo caawa laga diray magaalada Kismaayo oo ku wajahan deegaanka Raskamboni oo maalmihii ugu dambeeyay arrin musiibo Axmed Madoobe ku noqotay ay ka taagneed. ciidankii la diraba waxay isku dhiibayeen kuwa dawladda federaalka halkaas ay maalmo ka hor keentay. ciidankaasi waan dul istaagi doonaa fariin iyo tusaalooyinna waan ka bixin doonaa. dhanka kaleeto saraakiil ka tirsan waliba guutada Birjeex baa maanta hadlay oo maalmihii ugu dambeeyayna hadalhayntoodu ay taagneyd. xog cusub baan idinka wadaa. saraakiishaasi mowqifkiina cadeeya layidhi la khasbay iyo aragtidoodii arrinta ay doonayaan iyadana xog cusub baan idinka wadaa. dhinaca kaleeto reer Jubbaland maxay u baahan yihiin? ma Axmed Madoobe oo hortaagan bay u baahan yihiin? ma Xasan Sheekh Maxamuud bay u baahan yihiin? hortayay u baahan yihiin? ma doorasho qof iyo cod ay u baahan yihiin? ma doorasho dadban bay u baahan yihiin? horta shacabka reer Jubbaland maxay u baahan yihiin? ma Axmed Madoobe inuu iska hortaagnaaday u baahan yihiin mise isbedel siyaasadeed inuu Jubbaland ka dhaco oo noloshu iyo shaqadu iyo xilkuba isbedelo ayay u baahan yihiin? iyadana waan iftiimin doonaa. qodobkeena ugu dambeeya waxaan ku iftiimin doonaa dad badan baa waxay ileeyihiin wardaarood baa tahay oo weliba ogaadeen baa tahay maxaa ku helay maxaa kugu dhacay? ogaadaannimada iyo daaroodnimada iyo xaqoo la iftiimiyo dee kii weynaada iyadana waan isla eegi doonaa. xaqa in la iftiimiyo oo waxa weeye in qabyaalad la yidhaahdo daaroodnimada iyo ogaadeenimo loo dhaqmaayey mid sida ay kala tahay iyo mustawaha ay kala leedahay iyadana waan idin iftiimin doonaa. waxaa kaloo idinku dari doonaa Axmed Madoobe waxa aan isku haynan anigu kala hadlayo shakhsiyad anigu waxba ooma qabi oo gaar ahaan malihi waxa weeye Axmed Madoobe waxaanu ii diiday ama waxaanu iga haystaa. laakiin bulshada reer Jubbaland maxay u baahan yihiin? waxa ay u baahan yihiin way waxaan waan iftiiminayo. iyadana mid iyo labo ayaan ka horan doonaa. muuqaalka like saara fogeeya baldeerka tuura insha Allah taala. aragtidiinu waa muhiim. waxba aniga hay ugu tirin wax sida adiga aragtidaadu ay ku leedahay noogu soo qor qaybta commentiga. haddii aad aragtid dheer qabtid oo doonaysa in war lagaa duubana naftirkeeda qaybta commentiga lambarkaada noogu soo dir ama fariinta ii soo raaci waan akhrinayaa haddii la yidhaahday. aynu ku bilownay caawa guutooyin Axmed Madoobe daacad u ah ayaa galabta ka ambabaxay magaalada Kismaayo sida dad jooga Kismaayo ay xaqiijiyeen. waxa ayna ku wajahan yihiin oo ilaa iyo waliba caawa siq dhexe ay gaari doonaan deegaanka Raskamboni oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya. ciidankan waxa loo diray in dagaal ay ku qaadaan kuwa dawladda federaalka ee halkaas ku sugan. mana aha ciidankii ugu horeeyay oo Axmed Madoobe uu diro laakiin wajigabax iyo ceeb ayuu kala kulmay ciidamadii maalmihii ugu dambeeyay deegaankaasi u dirayna dhammaantood waxay isku dhiibeen ciidanka dawladdu ay maalmo ka hor halkaasi keentay gorgor iyo haram cad oo ay ku beereen
qaar muqdisho laga dajiyay qaarna waxaad ogsoontihiin weli inay ku sugan yihiin deegaanadan ay ciidanka dowladdu ay ku sugan yihiin bale weliba hubkooda iyo saanadoodii iyagoo wata ayay ciidanka qayb ay kala noqdeen oo qayb ay ka yihiin maalmihii ugu dambeeyey marka waxaa la hadalhayay war deegaankan sixir baa yaalle axmed madoobe oo socdo oo doon saaran arbuu isku dhiibaa ciidanka dowladda bala lahaaba oo maadaama ciidankii la dirabo isdhiibahayo war axmed madoobe arbuu doon fuulaa oo isdhiibaayo ciidanka dowladda isku dhiibaa ayay bulshadu ku kaftamaysay markaa fadhi kudiriyada iyo komantiyada aad fiiriso waxaa laga qiyaas qaadanayaa ciidanka tirada badan ee la iska daba dirahayay mar iyo labo iyo saddex iyo afar toona lahayn ee daraawiishta jubbaland ee sida isdabajoogga ugu biirahayay ciidanka dowladdu maalmo ka hor ay deegaankaasi geysay iyadoo maqal iyo muuqaalana waa idinla wadaagay kuwo badanoo waxaan arkayay soo qurqurahaya oo dee ay baal martay un axmed madoobe ay baal martay oo le waxa weeye beenta daa ciidan isma dhiibin war waxaas waa su-aal madoon sadar muuqdana waa su-aal madoon waxa weeye qofka inuu xaqiiqada iska indhatiraayay ma aha adigu taageeradaadu waa baab kale laakiin anigu xaqiiqada ayaan soo gudubinayaa ciidankii maanta isdhiibay waad ogsoonaydeen guutooyin baa maanta isdhiibay 120 askari bay ahaayeen caawana kuwaa sii socda oo axmed madoobe uu diray inay dagaalka ku biiri doonaan iyo inay isdhiibi doonaan oo waddadii kuwii hore ay qaadi doonaan lama oga dhanka kale waxaa la ii xaqiijiyey dad raskambonij oo ii xaqiijiyeen in ciidamo kale oo daraawiishta jubbaland ka tirsan ay la soo hadleen oo kuwa dowladda ay la soo hadleen oo iyaga naftirkooda aroortii ay soo gaari doonaan markii ay soo gaadhaanna iyadoo maqal iyo muuqaal ah ayaabaan idinla wadaagi doonaa haddii ay teenu gaadho ilaaha yidhaahdo taasi waa ciidanka axmed madoobe uu diray dhanka kale maanta waxaa hadlay saraakiil axmed madoobaan taageersannahay dowladdan difaacaynaa leh oo uu kow ka yahay taliyihii guutada birjeex oo maalmihii ugu dambeeyeyba xabsi guri magaalada kismaayo ku ahaa kadib markii mowqifkiisa uu caddayn waayey saraakiishii jubbaland waxay maanta marayaan ciidankii waxa weeye taliyayaashii jubbaland waxa ay marayaan maanta in la wada khasboo la yidhahda caddee mowqifkaada oo muuqaal laga duubto ilaa muuqaalka markuu maanta ka hadlo meel baa laga dhiganaya in marka caddee mowqifkaada la leeyahy sargaal walba hal xidigna ha lahaadee caddee mowqifkaadaa hadda socota mid bay tv-ga usoo hor istaagi doonaan waa arrin lagu khasbay waa arrin dulmi waxa weeye ku ah saraakiisha oo lagula kacay weye arrintaas axmed madooba samaynaya kadib markii shiki badan ciidankii ka dhex abuurmay in ciidan badanna isdhiibay kuwo kalena waddada inay ku jiraan looga shakiyey saraakiisha waxa weye qaarkood ay diideen oo la yidhi axmed madoobe anagu dagaalkaa kuu geli mayno oo xabsiga kismaayo la dhigay waxaa la yidhi waxaad yeelaysaan hadla waa in saraakiishu ay hadashay intay dhalinyaro dabada waxa weye la daba istaajiyey qoryo haysta oo dhegta laga fudanaya hadal baa la yidhi xoog baa looga duubay ragga qaarkood qayb badanna way hadli doonaan hadalka ayna leehayna ma aha hadal mucaarada ma aha waa hadal xaqiiqa ah weeye beri waxaad ogsoonaan doontaan ood arki doontaan maalmo gudahood sargaalkii shalay hadlayey oo intuu baxsado leh khasab baa la yidhi ku hadal beri ama beri dambaan arki doon maalmo gudahood fiiriya sargaalkii laga hadashiiyey oo leh khasab baa ku hadal la yidhi ayaad arki doontaan oo maqal iyo muuqaala nafteenu hadday gaadhana inii soo bandhigi doonaan saraakiisha marka maanta hadashay rabitaankooda iyo jacayl axmed madoobe ay u qabaan kuma aysan hadline xoog ku hadlaa la yidhi oo iscadeeya baa la yidhi maadaama maalmihii ugu dambeeyey saraakiishu intay ciidankooda qaadaan oo ay howlgal aadaan haddana ay halkaasun isku dhiibayeen oo ciidanka dowladda ay ku beeraayeen iyadana saraakiisha hadashay waa midaasi waa sidaasi axmed maxamed islaam bulshada reer jubbaland horta bulshada reer jubbaland waa la dhinac baa loo jeheeyey waxaa loo jeheeyey oo la yidhi oo lagu qasbayaa hawiye aynagu soo duulay wax la yidhaahdo war hawiye duulaan maahee ummadda dulmiga ka daaya war hawiye maa qof aniga iga og baa jira oo maanta joogaay meeqa muuqaal baan maalintii ka sameeyaa meeqaan xoga ka bixiyaa meeqaan dhaqdhaqaaqooda la socdaa meeqaan maalintii ka waramaa meeqaan ogsoonahay xasan sheekh maxamuud aan ogsoonahay tallaabaduu qaadaba midaan maanta anigu idiin sheego ayaad b b c iyo waxa weeye v o a ka dhegaysataan 4 beri kadib 5 beri kadib oo tviyada weliba 7 kadib ay tviyada qaarkood ay tabiyaan midaan maanta anigu idiin sheego
wax kale ma raaco wax kalena kama shaqeeyo maantoo dhan waxaan qolka ugu jiraa hebel wax weydii filla Soomaaliya weydii rag jooga dad way joog weydii halka yaa maray halka yaa baxay oday xagee maraya halka maraya maantoo dhan la leeyahay warkaad maanta intaad dhegeysataa aad u malayso inuu aad tiraahdo war xagee ka soo baxo meel kale ka weydo yaa tan la soo booda cadii show waa beenba waxan arba afar bari kadib hadana yaa dhegeysataa iyadoo TV-yada iyo wax walba ay tabinayaan oo markaa uu xogta ay ogaadeen war Xasan Sheekh Maxamuud maanta Jubbaland meel uga banaan iyo hawiye meel ay ka degayaan oo u banaan ma jiro dhulka reer Jubbaland ninba Ilaahay meel buu ku beeray oo uu degan yahay meel maanta hawiye ay degan yihiin leen waa qabsanaynaa adeer ma jirto qabaa'ilada hawiyaha ee way degan yihiin la leeyahay waa dad la garanayo waxa weeye tuulooyin iyo meelo yar oo la garanayo ka degan dhul ay qabsan karaan iyo maamul ay qabsan karaan iyo dad la qaban karo ma aha dadkan reer Jubbaland ninba Ilaahay meeshuu ku beerayna inuu degan yahay war ma ogaadeen baa maanta qabsan kara gobolka Banaadir war ma ogaadeen baa maanta qabsan kara Dhuusamareeb war ma ogaadeen baa maanta qabsan kara Baydhabo war ma ogaadeen baa maanta qabsan kara meesha la yiraahdo Beledweyne umada maxaad beenta ugu sheegaysaan war Xasan dhaliil in ku filan uu leeyahay inta dhaliisha uu leeyahay ka bixin anigu Xasan ma soo dirsanin Xamza ma soo dirsanin isku siyaasad kama nihin aragtiyada iyo qorshayaasha qaarkood ay qaadayaan waa madaxdii dawladda wixii ay ku saxan yihiin waa saxantiin yes baan dhahaynaa waxay ku qaldan yihiin waa waxa aan meesha u fadhino ee 3 sano aan wada ee leeyahay ka daaya war joojiya war ka daaya waad fashilanteen waad ceebowdeen aan leeyahay way midkoodna ima soo dirsanin midkoodna uma shaqeeyo xaqiiqada ayaan anigu iftiiminayaa mid qabriga waxa weeye su'aalaha iga jawaab waxa weeye xaga qabanna ma jiro runtan ka sheegaya wixii ay ku fashilan yihiin ma sheegi ninka la yiraahdo Axmedna wuxuu ku fashilan yahay ma sheegaynaa war Axmed haddaan xaqiiqada ka hadalno nimankaas iyaga waxba hadda inaga ma dhaxeeyeen tadbaabkooda inaga xidhaan daaroodow inta beenyeena isku sheegine nimankaas waa federal wixii inaga maqan waan ka qaadanaynaa wixii inaga maqan waa wax inaga maqan waana ka qaadanaynaa waana kula dagaalamaynaa laakiin midana inagayna huran oon leenahay xaqiiqadeeda aan ka hadalno shacabka Jubbaland isbedel ma u baahiyin mise uma baahna waa su'aal aragtidaada soo qor shacabka Jubbaland isbedel ma u baahiyin mise uma baahna war Ilaahay baa kugu dhariya adiga gurigaada habeen walba ma bariis baa laga kariyaa habeen walba ma baasta laga kariyaa maalin walba ma hal shaati baad qabtaa maalin walba 12 sano hal shaati aad qabta ka waran war sida aad dharkaada jirkaada ugu baahan yahay inaad dharka iska bedesho war sida aad waxa weeye calooshaada ugu baahan tahay inaad cuntada iska bedesho ayuu bini aadamku ugu baahan yahay isbedel siyaasadeed inay helaan hoggaan aan dhacaynin hoggaan aan ku dhaafaynin hoggaan aan horumar lahayn hoggaan aan amni waxba kaaga qabanaynin hoggaan aan adiga waxa weeye waxa kugu tixgelinaynin hoggaan aan waxba kugu qabanaynin hoggaan dhibaato waxaan ahayn aadan ka faa'iideynin 13 sano ku hortaagan ha ku sii hortaagnaada haddana war xagee ka imaatay waxa daaroodo xagee ka imaatay ogaadeeno xagee waxa ka imaatay war miyana Ilaahay ka baqaynin waxa la rabaa isbedel inuu ay ka dhacdo Jubbaland baa loo baahan joojiya beenta iyo turuufada la yiraahdo Axmed Madoobe ninkii ka hor imaado waa cadow war xageen cadow ku noqonay Axmed Madoobe muxuu yahay war soo shalayna wamina dhibanin 13 sano hayay mageed meesha ka baxayba soo bulshadu isbedel uma baahna maxaa cadow ka dhigay dadka soo dadku aragti ma laha soo rabitaan ma laha war maalintu Axmed Madoobe Kismaayo qabsaday ninkii la shaqo bilaabay ayaa ilaa iyo hadda shaqeynaya tiimkii yaraa ee Kismaayo markii ugu horeysay la galay wax boobay waxa weeye wax qabsadeen ninba meel ku dhagay ee jabhad ahayd waxa weeye ninba meel ku dhagay meel ku dhagan intii la laayay iyo intii la ceyriyay marka laga reebo warso isbedel lama rabo waxa la rabaa in isbedel ay bulshadu hesho maamul cusub dhasho dad cusub ay ka faa'iideystaan competition uu noqdo tartan uu noqdo waxa la yiraahdo hoggaanka uu noqdo hoggaamiyaha maanta imaada inuu dhahaa raba berito wax lagu xusuusto samee waa inuu horumar sameeyo laakiin nin meel iska fadhiya oo isoo marow malagaagali oo garoonkii dekadii madaxtooyada bas ilaashanaya oo wada dhisaynin oo wadankii amni ka dhigaynin oo kooxo la dagaalamaynin oo dhirta la guri joojinaynin
oo deegaanada maqan qabanaynin oo ciidanka aan talacsiin waxba siinaynin oo bulshadii rayidka aan waxba u qabanaynin wixii soo dhacay beesha caalamka keentana intuu qaatay dekedaha uga soo ururiyo